salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kulanti wacan oo wanaagsan iyo mar kale muuqaal kale oo xiiso badan. waa anigu cabdalla ilana janalka daawanaysan hadda waa Galer Media. asxaabta qaaligaas soo dhawaada isku soo noqod wanaagsan oo weliba xiiso badan. waxaan ku rajeynayaa saan anigu caafimaad qabo in adiguna caafimaad qabto. hadde waqtigiisu wacan adna uu ku wacan waqti kasta ay ku tahana wanaagsan. haddaba soo dhawow mar kale iyo mar kale. aniga horta hore waxa waaye xogaa dhijinijini aska mugti xaalli yaaban asxaabta qaaliga mar waxaan soo sameeyaa sawiraan, mar waxaan soo sameeyaa applicationo, mar waxaan soo bandhigaa marba waxbaa soo bandhigaa. waxyaabahaas aan soo bandhigayo asxaabta telegramka, whatsappka, clubhouse-ka, facebooka, qof walba waxbuu isoo weydiiyaa. marka maadaama ay saas tahay qola wanexpeed waxbay isoo weydiisaa. marka maadaama ay saas tahay janalkan uu u furan yahay asxaabteeda qaaliga muuqaal waxaa la jeclaystay muuqaal hadda kahor aan ka sameeyo. waa markii ugu horeysay muuqaalkaasi aan ka sameeyo applicationka wanexpeed inaan dib asagoo rogaal celisa aan ugu sameeyo. waayo applicationka wanexpeed waxaa lagu sameeyey update ayaa lagu sameeyey. muuqaalkan wuxuu quseeyaa kolley maarata asxaabta wanexpeedka isticmaasha saaxiibada qaaliga wanexpeed waxaa lagu sameeyey update. marka kolley waxaa maarata sawirkaanay saareen. ujeedadeeda marka waxay tahay waxaan rabaa inaan wax yar la wadaago. waxaa imaatay beryahan in maarata akoonada ee lacagta ku xeermaan maadaama shirkadaha soomaalida iyo wanexpeedka sarifa iyo wanexpeed shabakada wanexpeed xogaa khilaaf uu soo dhex galay. marka waxaa jira marka in simikaarada shirkadaha badankooda koodadka ay ku adkeeyaan ama koodadka ay usoo dhici waayaan. marka halkaan eegto qaybtan markaa eegto tusaale aan ku calaamaday meesha aan taabanayo qaybtan markaa eegto waxaa kusoo baxayso qoraalkaasi marka wuxuu sheegayaa in maaragta macluumaadkan inaad akhriso aad bay kugu wanaagsan tahay. wuxuu ku leeyahay maaragta qaabka u shaqeeyaa application qaabku u shaqeeyaa appkan authentication qaabku u shaqeeyaa. macnaha waxay ka hadlayaan inaad ka maarmi karto macnaha lambarkaaga oo aad saaran karto authentication code ku xiran karto. marka inta aad ka baxdo waxaad tegi kartaa qaybtan kaleeto dhahayaan profilekaaga ayaad tegi kartaa oo halkaas ayaa macluumaad kale ka akhri kartaa. oo halkan waa kana halkan ayaa waxaad ka akhri kartaa macluumaadka application barnaamijka aan raba inaan ka hadlo. maadaama tusaale marka wanexpeedka markii uu lacag kaasoo diido lacag kaaga bixi weyso muhiimaddu waxaa waaye waxaan marka horeeta aan certificate ku ahayn ama ku certificate garaysnayn kan certificate garaysnayn waxaa waaye akoonkaaga mararka qaar inay lacagta ku xeeranto waa iska dhacdaa. marka ujeedada muuqaalkan aan u duubayo muuqaal hore oo aan ka sameeyey authentication code-ka ayaa waxaa dhacday in maarata dad badan qaarna ay yidhahdeen waa fahnay, qaarna ay dheheen maarata ma fahmin. marka kolley meeshan waxaa kaaga muuqdo in uu hadda wax calaamad guduuda oo saarnayn dhammaantooda uu wada sax yahay, dhammaan uu profileka uu sax yahay. marka kolley waxaan rabaa marka inaan kula wadaago qaabka marka adoona degdegeynin oo aad maarata aad fududaanaynin waxaa loo baahan yahay inaad u isticmaasho qaab si degan aad u certificate. tusaale hadda fiiri emailka oo kaleeto marka aan off dhaho marka warkayaan idinku dheereen warka hadduu bato kiis hore kiis dambe ku ilowsiyaa layidhi waad aragtaa kolley calaamad guduud ayuu soo saaray. marka haddii marka calaamadan dhexe authentication code-ka ama two factory authentication meesha ay ku qoran tahay oo kaleeto two factory authentication ama koodka laba geesoodka la lahaa ama macnaha furaha laba geesoodka ama qufulka saddex geesoodka hadba waxbay u bixiyaan oo gaalada ku magacaabaan. haddii marka meeshaasi maaragta ay kaa tahay block ama disable oo calaamadan guduud ay kaa saaran tahay kolley waxaad ogaan kartaa in profilekaaga uu markaasi uu qabiyo yahay. badanaa intaan anaga waa naqaanaa oo maaragta qof walba oo markaasi wanexpeed
isticmaasha waa ay taqaanaa ama aqoon waa u leedahay. Intaan waa ay taqaanaa qof walbo oo wana kasbid isticmaasha intaan waa ay taqaanaa oo macluumaad loo ogama baahna. Kan lambarka way taqaanaa, passwordka in 9 maalmood ku dhaco way taqaanaa. In security question waa la wadaagi doonaa kuley. Security question inta badan ma naqaano. Personal profile waa naqaanaa. Sida loo buuxiyo qaarkood waa yaqaanaan dadka. Marka labada ugu muhiimsan marka oo adiga haddii lacag kaaga xiran tahay ama kaaga xiranto ama dhici karta inay kaaga xiranto dhib ku keeni karo waa labada meel. Okay, marka hadda waxaan soo sameynay authentication code-kii. Authentication code maxaa tahay? Authentication code horta waxaa la yiraahdaa appkan halkan yaalo, waxaa la yiraahdaa application-ka halkan yaalo ayaa la yiraahdaa authentication code. Uu rabo inuu withdraw sameeyo oo lacagtu rabo inuu kala baxo. Tusaale akoonkeyga hadda kan waa one click waaye, wax lambar ma saarno markaasaan u fiiriso. Wax lambar ma saarno, one click waaye, lambar ma lahan, linkigi lambar ma lahan, emailka lambar ma lahan, username lambar ma lahan. Okay, marka waxaan rabaa inaan withdraw sameeyo waa taqaanaa one click code ku weydiinay. Okay, kuwa marka haddii one click yahay iyo haddii lambar saaran yahay haddii uu marka oo diido code kan one click waa ina lambar soo saartaa. Halkan waxaad aragtaa inuu ka maqan yahay lambarka telefoonka waa ina soo saartaa linkii. Halkan hadda waxaan gelinayaa lambarkeyga Somtelka ah 627324. Okay, next waa inuu code soo dhacaa si markaasi aan ugu xiro lambarkeyga. Okay, code send you dhahay. Code-ka soo dhacayo, code-ka markuu soo dhaco kadib ayaan gelinaynaa. Marka videoga pause ayaan qabanaa si markaasi uu ugu dheeraan. Okay, code-ka waa kan uu soo dhacay halkan shaashada saaran saad aragto. Code-ka waa soo dhacay. Marka waa inaa code-ka soo qaadaa. Code-ka ayaan soo qaadayaa marka. Halkan leysaan u taabanay. Copy ayaa soo dahanaysaa. Kadibna paste halkan ku leedahay. Marka paste halkan ku dhaw confirm aan leeyahay. Okay, hadda waa aragtaa kuley meeshan waxaa saaran tig ayaa soo saarantay oo green ayaa noqday. Kanna password 9 maalin waaye. Okay, waxaan hadda rabaa marka step-ka labaad oo markaasi aan kaga gudbi karo inaan sameeyo waa inaan halkan select question-kan security question-ka waa inaan maaragtaa aan soo doortaa. Security question-kan waxaa la sameeyaa waxaad ka dhigi kartaa maxaa la sheegay same number numberka micnaa ninaastada ka dhigi kartaa, aabaha magaciisa ka dhigi kartaa, hooyada magaceeda ka dhigi kartaa. Marka anyone adiga midii aad rabto dooran kartaa kuley. Marka ninaasta ayaa halkan ku qoranaysaa. Ninaastaada waa maxay? Ninaasta hadhoodii tusaale wuxuu ku weydiinaa haddii akoonka aad geli weysid ama code aad weyso company-ga markii aad website-kooda gasho aad rabto inaad website-kooda ka soo furato wuxuu ku weydiinaa su-aashan ah oo maxay ahayd security code-ka ah security question-ka. Marka security question-ka hadda waxaan soo doontay same number. Okay, ninaasteeda marka waxaan ka dhigayaa meeshan alxaq wala daamaya. Ninaasteeda marka elaan waa aniga elaan aan gashanaa meeshan. Okay, waka. Okay, halkan aad u jeedayo waxa fuulayso tick refresh and daya waka. Okay, meesha ugu dambeysa marka hadda marka waxaan rabaa inaan maaragtaa aan tago withdraw markaan rabaa inaan tago marka oo koodna uu isoo dhici waayo. withdraw waxaan rabaa inaan tago koodna isoo dhici waayo. Number 2 $2 oo kale tusaale gelinaa gobol iyo waxba mar raadinaa tusaalaha ka rabaa aniga. Okay, saana dhahay waa kan marka saan waaye marka saan oo kaleeto code ima soo dhacayo kale saan markay tahay code waa isoo dhici waayo. Marka oo code isoo dhici waayo oo aan rabay in marka inaan maartaa aan code-kii helo ka noqonayaa. Marka ka noqdo waxaan tegayaa profile-keyga ayaan dib ugu laabanayaa. Dib ugu laabto halkan ayaa taabanaya mar kaleeto. waxaad muuqaalka la socotay anigoo lambarkii geliyay
anigoo lambarka geliyey lambarkii anigoo geliyey iyo anigoo nenasti geliyey oo markaasi security question geliyey waxaa ii haray marka labadan step oo emailka gmailka waa iska dhaafaysaa gmailka muhiim maahan faraad ka qaadaysaa gmail keliya waxaad u baahanaysaa markii oo maaragtaa aad telefoonka aad ka maaranto su-aasha hadda meesha taagan waxay tahay waa lacagtii baa xayiran oo kood waa soo dhici waayey san waxaa la yaabaa marka meeshaan authentication code ku qoran tahay ayaa waxaad samaynaysaa meeshaan authentication code ku qoran tahay meeshaan authentication codeka ay ku qoran tahay meeshaan authentication codeka ay ku qoran tahay ayaa waxaad samaynaysaa tigta ayaa waxaa ka qaadaysaa disableka ayaa laga rabaa inaad ka qaado ayadan taabanaya marka ayada markaa taabto waa ka wareegayaa waa inaad laba mid samaysaa marka midda koowaad halkan inaad taabato oo markaasi screenshot aad ka qaadato ama open authentication codeka aad tiraahdo marka meeshaan markii aad imaato waxaan rabaa inaad si fiican la socoto muhiimaddu waa halkan koodka oo simikaar kugu soo dhacayo ama aad ka weysay meesha aad ka helayso waa halkan authentication codeka aad taabanaysaa authentication codeka application authentication codeka kaamirada videoga ma qabanayo screenshotna lama ogola in laga qaado marka kolley adiga ayaa fahmi doono marka authentication codeka waan galay gudihiisaan ku jiraa koodka ayaan soo qaadanayaa authentication code gudihiisaan ku jiraa kood ayaan soo qaadanayaa marka kood waxaa jiro oo asaga uu soo siinaya koodka ayaan soo qaadanayaa koodka markaan soo qaato waxaan keenayaa halkan ayaan keenayaa marka authentication codeka marka aan confirm dhaho halkan waxaad ka aragtaa send code oo dhaa code ayuu dirayaa koodka markuu diro koodkii waa kan soo dhacay halkan ayaan basti ku leeyahay koodka soo dhacay haddeertaan lambarkii taleefonka ee ku soo dhacay okay meeshaan waa ujeedaa attempts minaha isku dayaa lagu yeerifiiriyey to authentication code enable your security key for disabling okay screenshot ayaad ka qaadanaysaa marka ugu horeyso marka labaadna halkan linkigan ayaad taabanaysaa waxaad ka qaadanaysaa copy ayaad leedahay haddaba ha fududaan adiga oo maaragtaa copyna aada dhihin screenshotna aada ka qaadan okeyda ha taaban meeshaas waa kaaga digaa adiga oo maaragtaa screenshot aada ka qaadan aada maaragtaa copyna aada dhihin okeyda ha taaban inaad fahantaa rajeynaa okay waxaan kasii socono marka hadda waa kana waxa waaye dhammaan waxay noqdeen wada cagaar okay intaan tig ayaa saaran oo waa isla soconay kulley markii aan wada saaraynay kana waxaa ugu dambeeyey haddeertan authentication codeka ugu dambeeyey waxaan soo sameynay authentication codeka ayaa ugu dambeeyey okay marka waxaana kuu sheegay authentication codeka adigoon screenshot aada ka qaadan linkigiisana aada copy dhihin ha gelin micnaha okay ha dhihin ma fahmaysaa okay kani waa security waa akoonkii caadiga ah marka waxaan rabaa markaa inaan withdraw markaan sameynayo hadda marka sida hadaatoo kaleeto koodka iguma soo dhacayo telefoonka iguma soo dhacayo waxaan rabaa marka inaan halkan taabto kadib koodkii marka hadda iguma soo dhacayo mujida inter authentication code ayuu leeyahay qoraalka halkan ku qoran si fiican u eg qoraalka halkan ku qoran si fiican u akhri wuxuu leeyahay code for Google authentication code app okay Google code app xagee waaye authentication Google code app su-aashaas ayaan hadda rabaa marka inaan ku fahansiiyo authentication code waxaa la yidhahdaa applicationkan authentication code la yidhahdaa dhexdiisa lama ogola in video laga duubo ama screenshot laga qaado lama ogolo ma fahmaysaa authentication code appkani haddii telefoonka uu kugu jirin waad ka soo bixinaysaa haddii marka aad
halkan ayaa taabanaysaa marka koodka waxaad ka soo qaadanaysaa applicationka dhexdiisa ayaa kood ka soo qaadanaysaa koodka waa wataa ma u baahni telefoonka inaan ka soo raadiyo halkan ayaan baasti ku leeyahay okay koodka waa kana waa wataa confirm ayuu leeyahay hore ayuu ka saxay waa ka ujeedaa succeed haddii ay tahay boqoshadii kugu horeysa fadlan channelka subscribe saar like share ta ka ilaawin siina share garay haddii ayaamahan viewska hoos u sii wadaan ma aqaan muuqaalka ma share gareysaan ma aqaan miskiinkan Cabdullaahi inaad kor u qaadaan maragtiine isku soo naqad kale xiiso badan jaw